waxaanan soo dhaweynayn in la yiraahdo magaalada madaxda dalka laguma shiri karo oo amni ma aha ma garanayno cid loogu danaynayo laakiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo cid walba oo ay ka suurtoodo inay sidaa tiraahdo inay tahay astaantii qaranka inay tahay magaalo dadka Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan ay gacmahooda ku wada dhistaan inay tahay magaalo aan qolo lahayn ay tahay magaalo Soomaaliyeed inay tahay magaalo madaxdii qarannimada ummadda Soomaaliyeed inay tahay xaruntii dowladda dhexe iyo baarlamaanka sidoo kale waxaanan soo dhaweynayn in la yiraahdo daraf saddexaad oo ajnabi ah hana soo dhexgalo daraf saddexaad waa dhaqankii aan soo baranay oo la dhihi jiray ajaaniibtu ha u kala garqaado madaxda Soomaaliyeed kaasi waa la soo dhaafay xaaladda dowladnimada ay ku sugan tahay maanta waxay maraysaa shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan inay dareemayaan in sharaftoodii dowladnimada ay soo noqotay sidaas daraadeed waxaan leeyahay waa la soo dhaafay waqtigii shacabka Soomaaliyeed ay aqbali jireen in iyagoo u jeeda madaxdooda ajnabi u kala turjumo waxaan leeyahay mana yeelayaan shacabka Soomaaliyeed maadaama aanay shacabka Soomaaliyeed yeelayn annaguna ma yeeli karno wax aanay shacabka Soomaaliyeed ogolayn sababtoo ah inaan aqbalno rabitaanka shacabka Soomaaliyeed macnaheedu waxa ay tahay waa qayb kamid ah isla xisaabtanka saldhigga u ah dowladnimada hadda noo dhisan danaha Soomaaliyeed waxa ka turjuma dad shacab iyo madax Soomaaliyeed ma yeelayno inaan 20 sano ka badan dib u noqono xaaladda dowladnimadeenu ay maanta ku sugan tahay haddii aan nahay Soomaali waxa ay tahay maantay in dowladda Soomaaliyeed iyadoo ay ka shaqayso inay u kala dab qaado dowladaha dariska si iyaga u heshiisiiso dhexdoodana uga dhaliso wanaag annagoo marka ka shaqayn doona wax walba oo keeni kara inaan hore u dhigno qarannimada iyadoo looga shaqaynayo maskax iyo maal iyo muruq Soomaaliyeed waxaan soo dhaweynaynaa cid walba oo doonaysa inay nagula wado gaarigaas madaxtinimadu dowladnimada Soomaaliyeed ay ku wadaan oo ah dariiqa saxda ah waxaan soo dhaweyn lahaa marka inaan niraahdo ballanteenu waa inaan kulligeen Soomaalinimo dalkeenna u wada dhisnaa waxaan leeyahay marka kii ka dhunto dhibka diido dhaxal kuma lehid